ka bilaabayaa xeerka cinqaabta Soomaaliyeed ayaa lagu xukumay baa la yiri 14 nin oo la qabtay 9 ka mid ah soo bandhigay ayaa la sheegay waxa isweydiin doona markaa goormay xeerka Soomaaliyeed Soomaaliland inay ku dhaqanta ay arrintaasi ay bilowdo markii ugu dambeysay Soomaaliland waxaan ogaayay calanka iyaga diiday calankii xeerkan iska lahaa way diiday maxaa xeerka ku qasbay inay qaadato ma garanano markaysa waa arrin runtii la yaab leh weeye waa wixii la oran jiray baqtiga marray foodkiisana ma rabaa calankii baa la diiday xeerkina waa la wataa ma garantaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام يا مركورة دمان والله سوماليات هل كان يقدر وريا ميل والبوات جوكتان يسول بدي مالسان با وإن سلام يا حن مقال كان كهل دونا دور أرمود أو كلا دون حن مركورة كهل دونا أرمها كتاجن جبلان أركتي كلا دون أو دتكو أي كب حين ينسياسينه واحد جبلان أيتهاي يحالة جبلان بحروانا كومنت كب حين مركو وهرسا وعقلو كهل دونا دقال كود حيا سعيد عبد الله الدني يحسن الشيخ محمود حجابه مريا محاسة لقى في رياض دقالكاسي فاينالي وحن كهل دونا ومحي قرشها ومصبحي كلي هي محابيستنا ليه ولا لينا يا ومحي وحكردا بيانا فرانقين يترحم بحين بان كاسين دونا سو دواده ميل والبا واتشوكتان يسود بدي مقليسان با arrinta Jubbaland tan ku hormaro waxaan arkayay siyaasiyiin uu ka mid yahay wasiirkii hore ee duulista iyo hawada Master Omar oo runtii respect weyn iyo xushmad aan u hayo أنا أمسناي إنه أمر كم يديهاي دت كصومالية دت أنا يرضى أقوان تقوله دولة نمدة دل كان بحكمة بعدين كرهنتي وحاسكود دي درا هاي أمر قد بدو تشدي أيوه كوش شيء أحسن إن ما كان وحش شيئا إن يسدوني إن Jubbaland إلا بربريو بركينا على فيريو إن وحلا بربريو عارف ونكسر معلك وحاس سؤال إسويدين مدن حاج Jubbaland الإنسان ولا بربرين إياه ولا ديد إياه والسؤال أباهن مركو إنه كتشوا ابنه narrative ka Jubbaland in la burburiyo anagu dooni mayno waa narrative la dhisay oo fake ah oo aan waxba ka jirin isla markaasna aan caga badan ku taagnan weeye meel badan baa ka tusdoona waxaan ku hormaraynaa horta waa maxay Jubbaland waxa la yiraahdaa horta maxay tahay horta turxaan bixinta inaynu ka bilowno meelaha basic ah waxaan isleeyahay waa important waxaan aaminsanahay Jubbaland waxa la yiraahdaa ilaa iyo 4 waxyaalood u baa Jubbaland la oran karayaa markii la isku geeyo ayay Jubbaland noqonayaan waxa ugu horeeyo waxa weeye waa calanka Jubbaland waana garan ciida samaysay iyo macnaha uu xambaarsan yahay iyo aragtida laga leeyahay uma garanayo calanka Soomaaliya aaminsanahay waan garanayaa ciida samaysay waana garanayaa muhiimadda iyo macnaha uu leeyahay laakiin calankan ma garanayo number 1 marka waa calanka number 2 waa buug yar oo lagu sheegay dastuur aan aqoonin ciida qortay waxa ku qoran aan aqoonna waa midda labaad midda saddexaadna waa isla magaca Jubbaland oo markiisii horena ahaa magacay gumaysta bixiyeen oo dib loo soo celiyay oo asaguna aan garanay danta laga leeyahay and finally qodobka afraad ah waxa Jubbaland la yiraahdo waa Axmed Madoobe laftirkiisa way Jubbaland marka waa Axmed Madoobe iyo dastuurka iyo calanka iyo Jubbaland magaca naftirkooda afartaas waxyaalood marka la isku daro ayaan aaminsanahay in Jubbaland la yiraahdo wax kale Jubbaland la yiraahdo ma jiraan maamul functional oo shaqeynaya ma jiro hay'ad dastuuriya uu leeyahay ma jiro sharciyad uu leeyahay ma jiro baarlamaan uu leeyahay oo shaqeynaya ma jiro golaha wasiirada ma jiro ciidan ma jiro wax uu bixiyo oo sarfisa umada la siiya ma jiraan haduusan markuu wuxuu uusan ahayn maamul functional ah ama shaqeynaya haduusan ahayn de magaca calankii Axmed baa Jubbaland la yiraahdaa daarsan islaahay waa aragtida ugu fiican oo aan islaahay waa bixin karaya taa marka waa intaas Jubbaland la yiraahdaa hadeen u soo laabano maxaa la burburinayaa ma jira qof Soomaaliya maanta inoo sheegi kara oo reer Jubbaland ah oo runtii anoo respect u haya Omar nimanka odayaasha ay meesha ka hadlay oo siyaabo kala duwan u hadlay wax Jubbaland la yiraahdo caawadi xataa la burburaya ma jiraan Axmed Madoobe 12 sano ayuu Kismaayo joogaa laami kama dhisin oo airport kama dhisin oo waxbarasho kama dhisin oo caafimaad kama dhisin oo waxba kama dhisin oo xataa dekadii airportkii hore meesha ku yaal Axmed waxba kuma soo korin asagu xataa Axmed guri magaalada kuma laha waana marti ku ah oo boorsa ka taala oo kaliya waxaan aaminsanahay sababtu saa u sameeyay waa in aaminsan bari iyo barda midkood inuu ka caarir doono Kismaayo aaminsan way waxa la burburinayo marka Omar inoo sheegayo oo narrative ka nooca loo sameeyo maxay tahay maxaa Kismaayo ka jira magaalo ghost city ah oo laga guuray oo aan hay'ad ka shaqeyn oo cidna ka shaqeyn oo ganacsi lahayn tuulooyinka yar yarka ah ee koonfurta Soomaaliya ku yaala ayaa maanta Kismaayo ka dad badan kana dhaqaale badan maxaa Kismaayo yaala waxa burburaya anigu ma garan oo uu sheegayo Omar iyo nimanka odayaasha ay asaga la hadlayay ka hadlay Nairobi waxba kama garan conclusion kayga waxa weeye waa narrative fake ah oo Axmed Madoobe la doonayo in lagu sameeyo magac yaan la burburin oo maxaa dhisanba maxaa Jubbaland yiraahdo dhisanba waxa ma dhisna
recognition ka dowladda dhexe iyo asaga axmedooba meesha ka jira taasna lacagta laga cunana qurbaha lala aada qodobka halkaas aan uga baxaya marka waa marna habaabin muuqata weeye laakiin dadka oo dhan looma sheegi karaan isleeha qodobka labaad waa سعيد عبد الله الدني يا حسن الشيخ محمود أيان وقليا حسن الشيخ محمود يدني maxay isku hayaan horay ayaan oga hadlay muuqaal karan oga sameeyay hadii aan dib idin xasuusiyo marka waxa la isku hayo meesha yaalo waa un dhaqaalo weey sharci iyo constitution iyo dawladnimo iyo xagga waxa ma kaba jiraan maalinkii aan arinta hore oga hadlay dad badan baa igu diidanaa oo ilaha Xuseen oo dhaqaal la isku hayo wax kale la isku hayo laakiin maanta intii banaanka taala waxa la isku hayo dad ku laabataana muuqaaladii hore arkaysan waxa la isku hayo marka waa dhaqaalihii ay beesha caalamka iyo hay'adaha caalamiga ah ee Soomaaliya ka sabood garaya waxa loo yaqaano waxbarashada iyo caafimaadka iyo amniga waxyaalaha ay bixinayeen ayaa la isku hayaa laba project ba hadda ugu weyn waxa la isku hayo mid waa Global Partnership for Education oo loo yaqaano GBE lacag ay bixin jirtay 100 milyan ahayd qaabka loo qoondeeyay waa la isku hayaa midda labaadna waa World Bank ay lacag ay bixin jirtay qaabka loo qoondeeyay baa la isku haystaa Saciid Cabdullaahi Dan wuxuu dareemayaa sidii hore wax loo qaybin jiray inaan loo qaybinin documenti aan ka soo doonagareeyay GBE-ga website-kooda ayaa muujinaya oo halkaan idin soo saarayo in title-kii xataa la bedelay oo laga dhigay qaabka wax loo qaybinayo Soomaaliya iyo Somaliland waa arrin cusub oo Xasan Usubiyay bishii December sanadii aynu soo dhaafnay 22keeda ayuu arta Xasan Sheekh Maxamuud sameeyay waxa laga dhigay marka in boqolkiiba 40 wax ku dhow Somaliland la siiyo koonfurta oo dhan oo Puntland ku jirtana in markaas la siiyo 60% sida markii wax loo qaybiyo xisaabtii ay heli jirtay Puntland meesha xisaab wax badan ka yar ay Puntland helaysaa markii ugu dambeysay oo lacagta la qaatay sanadii hore tana Siciidani maamulada kala xataa lacag soo dardaraysa ku siiyay ugu qadbi arinta wali meesha taagan marka arinta marka dhinac iska fiiriso marka had islaahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa keenay fidnada meesha taala waa inuu asaga u saxo waa sida aan islaahay maadaama ay u baahan tahay qoondooyinka nooca markii la sameeyo hadii sidii hore laga bedelayo waa in si lagu qanacsan yahay dadka lagu hogaamiyo dan lagu hogaaminin cidii sameysay ayaa mas'uulka tamarku halkaas waxa jira maamul goboleedyo kale oo aan doonaynin in Carabaabo oo aan xog ku helay inay ayagu qayb ka yihiin aragtida Siciidani oo ay diidan yihiin qaabka labadaas projecti ee dhaqaalaha ah ee lagu sabood garay jiray Soomaaliya qaabka uu Xasan Sheekh Maxamuud u maamulay ayay diidan yihiin oo Siciidani bay ku aragti yihiin ayaga mustaqbalka soo bixi doonaan conclusion-ku muxuu noqon karayaa wax meesha ka soo baxaya Siciidani Nairobi tagay beesha caalamka ayuu la fariistay report buu gudbiyay maxaa ka soo bixi karaya waxaan islaahay markaan aqligayga yarka kooban ee aan ku laabto oo aan waqti galiyay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku qasban yahay inuu asagu saxo arintan oo khilaafaadkan asaga uu dhameeyo maxaa ku qasbaya weey su'aasha meeshta laba arrimood baa Xasan ku qasbaysa arintan asagu xaliyo koow isaga dalka madaxweynaha ku sharciyeysan oo mandate-kii madaxweynimada haysta mas'uuliyadda saaran baa Xasan ku qasbaysa arinta inuu xaliyo maadaama asagu wax ka bedelay qaabkii uu wuxuu bedelayna aysan ahayn qaab heshiis lagu yahay waa mid koowaad midda labaadna isbedelka dhacay Xasan asaga sameeyay sida daraadeed waa inuu asagu xaliyaa qodobka hore asaga mas'uul ah waa inuu xaliyaa qodobka labaadna isbedelkan muranka keenay asaga sameeyay waa inuu Xasan xaliyaa Siciidani beesha caalamka biyay qasbi kartaa ama ma qasbi karto waay 10 baynu ka baran waa inuu xasuusanaa hal sano iyo bar ayanu daawarinay in Siciidani iyo Axmed Madoobe ay agreementigii 17 September ay saas isaga daba wareejiyeen beesha caalamkana ay waxa ay sameeyeen waxana ay ku sameeyeen beesha caalamku cidna wax kuma sameyn karto wuxuuda waa hadal waxa kaliya sameyn kara waa in xoolaha la goosto wax kale ma sameyn kara hadalna waxay ku hanjabayaan hadii aan la heshiinin in xoolaha goosanayaan waxa ugu badan ay sameyn karaan waxa way section ma cisaarena waxa ay cidna ka baqaymayso Siciidani hore ayuu u sameeyay violation aad u fara badan oo dalka iyo dadka uu ku sameeyay mana jirto cid accountable u yahay wuxuu rabo sameyn kara Siciidani ma aha ku amaanayo waa mistake uu sameynayo waqti kala ra islaahay cid maxaa la yiraahdaa ninkaas wax ka qaban karta ay imaan doonto biidnillah laakiin cid wax ka qaban karta male Xasan baa ku qasban inuu arta dhameeyo haduu dhameyn waayana kulli deeqaha Soomaaliya la siiyo meesha ka baxaya qodobka halkaas uga baxaya finally waxaan ku dul hakado maxaabiistii la qabtay iyo danta laga leeyahay waa maxay waxa Muuse u danta u ka leeyahay artaas maxay tahay waxaan ka bilaabayaa xeerka cinqaabta Soomaaliyeed ayaa lagu xukumay baa la yiri 14 nin oo la qabtay 9 ka mid ah soo bandhigay ayaa la sheegay waxa isweydiin marka goormay xeerka Soomaaliyeed Somaliland ku dhaqanta ay artaasi ay bilowdo
markii ugu dambeysay Soomaaliland waxaan ogaa ayado calanka iyaga diiday calankii xeerkan iska lahaa way diiday maxaa xeerka ku qasbay inay qaadato ma garan anigu markaysa waa arrin runtii la yaab leh weeye waa wixii la oran jiray baqtiga marray foodkiisana ma rabaa calankii baa la diiday xeerkina waa la wataa ma garantaa dhanka kale markaad fiiriso waxaad arkaysaa waxay yiraahdeen nimanka aan qabanay sagaal ka mid ah waa bajeerteen bay yiraahdeen caadi bay u sheegeen magac qabil bay sheegeen okay haddana xeerka ciqaabta midkay adeegsanayaan qodobka 186 waa qodob loogu talagalay qofka muwaadinka Soomaaliyeed ee dalkiisa qiyaama ayaa loogu talagalay in lagu qaado oo qiyaano qaran ayuu noqonayaa su'aal haddana anagu qaranka Soomaaliyeed aan qiyaamo oo dalka u jaajuuso ayaa la igu qaadi karaa waayo muwaadin Soomaaliyeed baa su'aasha markay isweydiinta mudan marka waxay tahay goormay ma jeerteen muwaadiniin ka noqdeen Hargeysa oo maamulka ay ka mid noqdeen oo qodobka nooca lagu qaadaya waan ma garan markaysa nin baan ka maqli jiray maxaad cabtaan anigu ma garanayo nimanka Hargeysa jooga dawladda sheeganay waxay cabaan anigu ma garanayo laakiin dad maskaxdoodu shaqaynaysa ma aha labadaas ba markaad fiiriso isma keenayso Soomaaliya ma doonayno iyo qodobkooda ciqaabta isticmaalayna iyo constitution-koodii waan isticmaalayna isma keenayso waa ma jeerteen iyo waa muwaadin Soomaaliland isma keenayso jeerteen iyo adinku adeer reer xataa gelin xataa isma boodo markaysa نمبر حتى يصير شيء لبانتها isla degantiin xataa laakiin nimanka xataa isma gaaraan sida marka ninka bajeerteenka ah ee dagaalka lagu qabtay yaa tirahdeen adduunka sheega bajeerteen aad tirahdeen sida muwaadin Soomaaliland ku noqday oo xirkin ciqaabta lagu qaaday bal iswaafajiye adduunku mise qof ala qofka qabta muwaadinkii xaqina away ma aragaranin taa marka waa halkaasi dhanka kale waxa la yiri sagaalkan waa la dilayaa baa la yiri oo waxa la soo saaray maxkamad baa la soo saaray ma la dili karaya ma malaynayo in la dili karayo haddii la dilayana ama ay dhacdo in la dilana danta laga leeyahay waa qiyaasi karayna oo maxay tahay laba dan baa laga leeyahay qodobka ugu horeeya waxa weeye waa in ciidanka Soomaaliland ee is dhiibaya ay cararaya ee xabada ka cararaya gacmaha taagan everyday is dhiibaya inaysan is dhiibinin oo Muuse uu colaad xagga dhigo oo la waayo askari dambe oo Soomaaliland oo is dhiiba in la yiraahdo dad is dhiibtay waa lagu dilayaa ha ku roon inaad markaa dagaalanto oo dhimato maadaama aad mar walba dhimanayso qodobkaasi waa qodob suurtagal waana qodob aad loo yaqaano markii laga hadlayo arrimaha dagaalka qodobka labaad waa in dagaal qabaa'il loo bedelo meesha wax ka socda waxaad moodaa dadka shacabka ah ee SSC ka imaanaya inay uga fiican yihiin Muuse Biixi xagga dawladnimada oo ayagu ay wax xurmeynayaan bad moodaa laakiin Muuse waxaad moodaa nin aan waxba xurmeynaynin dawlad baan doonaa aan noqono caalamka la xisaabtamana democrat baan nahay wax sharci ah oo nimanka qabta ma jirto mar walba cid xumaanta u sii dhawaanaysa oo dagaalka qabiil u bedelaysa oo cayaalka xasuuqaysa oo waxba ka xishoonaynin oo muslim iyo gaalaba la leeyahay meesha waxa ka dhacay oo wax bin aadamnimada ka soo horjeed waa ayaga waa nimankii doonayay in dawladnimada ay gaaraan oo lahaayeen dawlad baan noqonaynaa ayaa ka fog waxa loo yaqaan dawladnimada dadka shacabka ah ee nabadoonnadii ugaasida iyo qabaa'ilka saarursanaya ayaa ka fiican ba markii laga hadlayo xagga sharciyada ayagu waxay ilaalinayaan dhaqanka waxay ilaalinayaan deegaanka waxay doonayaan inuusan dagaalku ku fidinin ba qabiilka laakiin ayagaas doonayaan in dagaalka qabiil loo bedelo waa la yaab marka qodobka labaad wuxuu noqonayaa in dagaalka qabiil loo bedelo oo wax alla waxa isaaqa ay ka cararaan deegaanka oo ay ku qasbanaadaan in dagaalka galaan arkaysa wiilasha wariyaasha ah ee jooga laascaanood baa la doonayaa in la yiraahdo hala laayo oo maxaa loo leenayaa because saaqaana loo laayo arkaysa waxa la doonayaa in la kala miirmo ma garanayo guusha ay ka helayaan taasna waa qodobka labaad labada qodob uu Muuse ka leeyahay marka aqligayga aan isku dayay inaan tuujiyo waxa loo sameeyo kow waan askartu ay diido in mar dambe ibto dagaalama ilaa ay ka dhintaan mid labaadna waa la kala miirmo oo loo bedelo dagaalka qabaa'il Soomaaliland ma guul baa ugu jirta ma maayna guul ugu jirto arkaysa nimankaas uga jimahad waa inay wax ka dhixin oo doonay dalkooda inay xoreystaan laakiin kuwaashe ayagay wax ka burburayaan waxaan maqli jiray nin daar ku jira dadka ma tuuriyeeyo ayagii dawladnimada sheeganayay baa dadka tuuriyeynaya waxay ka helaan beleeyeen intaas aan ku soo koobaya inta dib iska soo laabanayno waxaan ka tagay sayna madino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh